kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee janalkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dimashii dhaawac ka dhashay qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho xere ciidamada dawladda federaalka ay ku tababarayeen ciidan dhalinyaro oo ka mid noqonaya xoogga dalka oo markaas qof isku soo xiray waxyaabaha qarax la beegsay qasaare xoog leh ayaa ka dhashay wararkaasi ismidaaminta maanta Muqdisho ka dhacay wararkii ugu dambeeyay faahfaahinada ka soo baxay ee daawan doontaan beesha jariir weyn waxa ay ku dhawaaqeen dagaalka loogu soo horjeedo al-shabaab iyagoo markaas ku baaqeen diyaar u yihiin dagaalka ka qayb galaan isla markaana nabaddoonada iyo waxgaradkoodana ay balan qaadeen inay ciidamada xoogga ee markaasi garab istaagi doonaan waan idin soo gudbin doonaa al-shabaab waxaa laga saaray deegaano hore oo ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada macluusay ciidamada dawladda federaalka oo iskaashanaya markaasi deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan kala wareegay wararkii ugu dambeeyay howlgallada dhinac walba al-shabaab kaga furan ee galgaduud Hiiraan ka socda ayaa sidoo kale daawan doontaan walaalaha beesha afgaan waxaa loogu baaqay inay dagaal ka mid noqdaan oo markaasi laga sheegayo inay ka cagdidaan beesha banaadiriga sidoo kale ka mid ah beelaha loogu baaqayo inay hubka qaataan lana dagaalaan inay iska xuneeyaan al-shabaabka goobaha ay markaas ay kaga sugan yihiin gobolada ay markaasi ay degaan beeshaasi banaadiriga Turkigana waxa uu qaaday tallaabo culus oo markaasi ka dhanah al-shabaabka markaasi lagula dagaalamayo gobolada Hiiraan iyo galgaduud diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano ayaa Turkiga ku deeqday oo markaasi dagaalka qayb ka ah waan soo gudbin doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa wararka ugu waaweyn arrimaha caalamka ee diblomaasiyadda fadlan haddaad noqoto marka hore subscribe noo saar gambalkana furno share gareys xibadin markasta joogaan idinku commentiga like-na inuu riibaya aad baad u mahadsantiin aan ku bilaawno warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo maanta ka dhacay degmada wadajir ee gobolka Banaadir kaasoo dugtiisa si weyn looga maqlay xaafadaha qaar ee degmooyinka wadajir ee Dharkeenley qaraxa waxaa lagu soo waramayaa in lagu weeraray afaafka hore xerada dhagabadan warshada nacnaca oo ku taala wadada dhanka deegaanka Jasiira xerada dhagabadan ayaa waxaa lagu tababarayay dhalinyarada markaas doonaysa inay ku biiraan ciidamada xoogga dalka kuwaas oo lagu sii carbinayo xeradan oo markaas dhowr jeer horay lagu weeraray wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ahaa mid ismidaamin ah uu fido qof iska soo xiyay waxyaabaha qaraxa waxaan haatan socdo gurmadka loo fidinayo dadka ay waxyeeladu ay ka soo gaareen wararkaasi ismidaaminta sidoo kale macluumaadada aan ka helino wararka ismidaaminta ayaa waxa ay sheegayaan in xilligu qaraxa dhacay ee xerada markaas ku sugnaayeen dhalinyaro doonaysa inay ka mid noqdaan xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo lagu diiwaangeliyay goobta sida ay noo xaqiijeen ilo wareedo markaas lagu kalsoon yahay in ka badan 10 qofood oo u badan dhalinyaro markaas ku sugnayd goobta iyana ku dhintay qaraxan halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan sida ay xaqiijeen goobjoogaalka dhawaa wararkan ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaan darida ay ka dhacay caasimadda Muqdisho wuxuuna markaas dhan kale ku soo aadaya xilli ciidanka dawladda Soomaaliya oo kaashanaya maleeshiyaadka macluusayda ay kordheen howlgallada ka dhanka al-shabaab isla wararka ku saabsan dagaalada lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ee qabaa'ilada Soomaaliya ku jiraan markaan beesha jariir weyn ayaa ku soo biirtay dagaalka lagula jiro al-shabaab ayagoo markaas ku dhawaaqay howlgal markaasi ka dhanah al-shabaabka markaasi lagula dagaalamayo gobolada dalka Hiiraan iyo galgaduud ayagoo markaasi dhan kale ka booskinaya gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo markaas ay degaan iyo tuulooyin kale oo hoosmaada gobolka Shabeellaha Dhexe nabaddoonada waxgaradka siyaasiyiinta oo qoyaanada beesha ayaa markaas kun ay yeesheen waxa ay markaasi ku jahjeexeen in xaaladdu ay markaan ay dhaaftay toogtoogtan iyo markaas in ay faraha ka sii baxayso maadaama beelayn al-shabaab aan loo dul qaadan karin waxyaabaha ay markaas ku laqmeen dadka beeshooda ka soo jeeda isla markaana si abooyinka loo fasirayo ayagoona marka qaar lagu tilmaamay in markaasi ay yihiin dadka inta badan loo adeegsado in qaraxyada ay fuliyaan rag ka tirsan beeshaasi jariir weyn si yeeshee nabaddoonka guud ee beelaha dhexda shiidle Rashid ayaa markaas warbaahinta la hadlay muuqaal daqiiqado soconayo oo markaas la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay nabaddoonka oo ku dhawaaqaya seefta hala baxo oo diyaar loo noqdo dagaal ka dhanah al-shabaab oo markaasi cadeysay banaanta ama markaasi daadinta dhiigga dadka muslimiinta soo hadal ku dhigay nabaddoonka beelaha dhexda shiidle wuxuu soo kale nabaddoon Cabdirashiid Durro xaqiijiyay in markaas asigu uu diyaar u yahay in markaas dagaalka uu ka qayb galo maadaama uu yahay nin korneel oo hore ciidamada u soo maray isla markaana saraakiil darajooyin kala duwan ka soo qabtay nabaddoonka ayaa waxa uu kala beelaha dadka kale ugu baaqay in loo diyaar garoobo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo xogeenkiisa iyo sidoo kale xildhibaanada kale ka codsaday in markaasi lagu taageero dagaalka markaasi al-shabaab lagu qaadayo isla wararkaas aan ku guuljarnaa dhinaca kale beelaha banaadiriga ayaa ku dhawdo loogu baaqay inay hubka qaataan ay al-shabaabka iska saaraan meelaha ay kaga sugeen baraawo iyo deegaano kale oo halkaas al-shabaab ay dhibaatooyin badan ka geystaan waxaana baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay su'aal la gelinayay
beesha banaadiriga iyo sidoo kalente abgaal beel kamid ah ama beelahaasi abgaal weli shabeellaha dhexe aysan ka bilaabin dagaalka lagula jiro al-shabaab oo markaasi hiiraan iyo galgaduud ka socda qabiil dhexe ayaa daawanaysaan janalkeen haddii aad nagu subtahay saaxiib subscribe-ka noo saaro gambalelkana furo una sii shirgaray saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like-na inuu reebaya aad baad u mahadsantihiin aan kusii soconno qodobada hordhaca barnaamijkana aad kusoo maqasheena turkigana waxaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano ay ku taageereen dowladda federaalk ee soomaaliya dagaalka lagula jiro al-shabaab dowladda turkiga ayaa hadda toos ugu beertay duqeynta dhanka cirka ee lagu beegsanayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ku sugan hiiraan iyo galgaduud sida uu shaaciyey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi wasiirka ayaa sheegay in markii horeba ay garab ay ka heleen maraykanka balse haatan ay garab istaag ay ka heleen turkiga oo ciidamo kala duwan u tababaro dowladda soomaaliya fiq ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradaha dagaalka turkiga ee hawada ay ka caawinayaan ciidamada xoogga dalka xoogallada ka wada koonfurta iyo bartamaha dalka dowladda maraykanka ayaa hore u fulisay weeraro lagu caawinayo ciidamada huwinta ah ee dagaalka kula jirta al-shabaab bayaan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka africom ayaa lagu sheegay in 2 maalmood ka hor 7kii bishan September ay dowladda Soomaaliya ka codsatay inay duqeeyaan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Aboori oo hoostaga magaalada Buloburte ee gobolka Hiiraan isla wararkaasina Hiiraan maanta al-shabaab waxaa laga saaray deegaan kale oo ka tirsan gobolkaas waxaa ka mid ah Moqokori iyo Tardho oo markaasi gobolka Hiiraan ka tirsan ayaduna la soo arkayay sawirada iyo sidoo kale muuqaalada dadka beeshaas ka soo jeeda waa beesha xabaadle oo ku dabaaldegaya deegaankaasi Moqokori halkaasina ay shirabka iyo ciyaaraha hidaaya dhaqanka ay ku soo bandhigeen ayaguna markaasi muujinaya guul iyo dabaaldeg weyn ay ka gaareen dagaalamayaasha al-shabaab oo muddooyinkii soo dhaafay ama sanadihii ugu dambeeyay deegaanadaasi ay xukumayeen iminkaasi weeraro dhowr jiha ah markaasi dadka shacabka qabiilaadkiisa ay oo garab keenaya ciidamada xoogga dalkana ay markaasi weerarka ay yahay mid inqimaasha ay ku qaadeen ay kala kulmayaan dib xoog leh halkaasina iskaga cararayeen gabagabadii ayaan ku sii saqeynaa saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay maamin subscribe nitaado gambalelkana furtaan una sii shirkanaysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin had iyo jeer sida aad markaasi nala jaan qaadaysaan markaana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu kala hadlay James Swan kadib kulan ay yeesheen arrimaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo xaaladaha guud ee dalka kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amaanka iyo arrimaha bini'aadanimada ee dalka ka jira sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska wasaaraha sidoo kale kulanka waxaa diirada lagu saarayay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay saameysay abaarta kuwaas oo ku nool deegaano kala duwan danjire James Swan ayaa dhankiisa sheegay in qaramada midoobay ay u diyaarsan tahay inay dowladda Soomaaliya ka gacan siiso barnaamijyada hortuminta u leh qorshaha xukuumadda dan qaran wasaaraha ayaa muddooyinkii dambe wada kulmo uu la yeelanayo wakiilada beesha caalamka kuwaas oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho xamse ayaa intaa badan saaxiibada beesha caalamka kala hadlayay sidii dowladda Soomaaliya ay taageero ugu fidin lahaayeen arrimaha amniga iyo bini'aadanimada xilli gobolada dalkan ay ka bilowdeen dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab wararka arrimaha caalamka diblomaasiyadda waxaa ugu weyn tirada muwaadiniinta waddanka Ruushka ka soo baxaya ayaa sii badanaya ama sii kordhaya kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in 3,000 oo askar loo baahan yahay in la qoro isla markaana la diiwaangeliyo si ay qayb qadan noqdaan dagaalka Ukraine uu ku jiro Putin ayaa wuxuu markaasi sheegay in muhiim ay tahay in dagaalkaasi la xoojiyo maadaama askar badan dalkaasi loogu dilay guud ahaan wararkii waaweyn ee Soomaaliya caalamka ka tirsan channelkeena waa naga inta saaxiibayaal ay ilmaameen inaad subscribe na tiro gambalelkana furto una sii shirkadaysaan saaxiibadii meel kasta joogaan adigoo commentiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin